injineer cabdikariin maxamed cabdi oo ka mid ah dhalinyarada Somaliland ayaa waxa uu maskaxdiisa ka hindisay in waraaqaha wax lagu qoro ee loo yaqaan A4 uu ka sameeyo waxyaalaha quruxda badan ee lagu qurxiyo guryaha. injineer cabdikariin ayaa TV-ga caalamiga ah ee bulsho waxa uu uga waramay xilligii uu fikirkani ku dhashay iyo sidii uu u hindisay qorshayaasha farsamada gacanta iyo samaynta iyo nashqadaha kala duwan ee faraawalada iyo waliba nashqad kasta oo loo isticmaalo dhinaca qurxinta guryaha. cabdikariin maxamed cabdi oo bulsha TV la hadlay ayaa waxa uu yiri qaabta waxa sameeyay 6 June 2018 markii ugu horeysay waxaan ka sameeyay bacahan aan alaabta ku qaadano ayaan ka sameeyay flower aad u qurux badan kadib waxaan sii hawshan waa hawl muhiim ah waxa aad u sii baahanto inaad sii horumariso oo aad waxyaabo kale oo ka duwan aad ka sameyn karto flowerka. markii dambe talaabadii labaad qaad waxa ahayd inaan ka sameeyo flowerka waraaqaha A4 ah runtii way ii suurto gashay alxamdulillah si wanaagsan way ugu qabsoontay alaab aad u qurux badan oo aan ka dhicin alaabta dibadda nooga timaadana waan ka sameeyay runtii horta hawshan markii aan bilaabay waxaan u bilaabay ee ugu horeysay waxay ahayd baahi uu dalkayga uu qabo inuu wax soo saar yeesho. muhiimadda koowaadna waxay ahayd inaan ka maarmi karno alaabta dibadda nooga imanaysa ee lacagteennii adkayda waddanka aynu ku dhex isticmaali karinay dibadda qabanaysa. marka waxay noo suurto gashay inaan alaabtan aanu sameeyno flower aan dibadda ku leeyahay kan aan ka dhicin alxamdulillah taasi wanaagsan ugu qabsoontay. marka dhalinyarta waxaan soo jeedin lahaa qofku hadduu wax bilaabo hawl oo uu doono inuu xaqiijiyo oo ay kana go'an tahay go'aan adagna uu qaato ilaahay wuu fududeynayaa waan u xaqiijinayaa. kaliya waxa ku xiran tahay adoo go'aan qaadatid ah inaad wax sameyn karto hal abuur yeelan karto wax cusub soo kordhin karto. ana waxa isku day jiray ilaa imkaan isku dayay inaan wax cusub oo kale soo kordhiyo kuma koobniyo quraata flowerkan aan waraaqaha ka sameeyay laakiin waxa jira waxyaabo badan oo kale oo aan sameeyay oo ay ka mid tahay qaabka guryaha loo rinjiyeeyo oo casri ah oo dad badan ajaanib ay dalkeena ay noogu yimaadaan oo ay lacag iyo inaga qaataan oo aan awoodin shaqaalaha dadkeena reer Somaliland inay qaabkaas kale ugu qurxiyaan. runtii muhiimadda koowaad waxa weeyaan in aynu ka maarmi karno waxyaabaha dibadda nooga yimaada oo inagu aynu qabsano taas muhiimadda koowaad ee in anfacaysa awoodeedna xoog xoojinaysa. marka qof kasta oo reer Somaliland hadduu hawl ku mashquulsan yahay waynu ka maarmi lahayn waxyaabo badan oo dibadda nooga yimaada. qof kasta uu awoodi karaa inuu wax sameeyo waayo waxaan leynoo keenaba waxa sameeyay dad inaga la mid ah. marka qof kasta waxa ku xiran inaad aad kalsooni yeelato oo aad maskaxdaada geliso inaad waxaan sameyn karto kadibna aad u dhaqaaqid. tani waa boorsooyinka hablo alaabta ku qaataan waxaan ka sameeyay kartoon iyo maro adigaarkeena aad u qurux badantay aan waxna ka dhicin alaabta dibadda nooga timaada. tan oo kale waxaan ka sameeyay waraaqaha A4 ah frame-kan ku wareegsan waa calankii Somaliland kana kale soo decoration aad u qurux badan waxa lagu tagalin guryaha la sudho laba qaab baa loo suraa qaabkaas geeska waa loo suraa oo musbar waxa gaasar laga dhijiyaa qaabkaana waa loo suraa nashqado kala duwan oo kalena waa laga sameyn karaa. kana kale isna waa flower aan ka sameeyay waraaqaha waa aad buu qurux baday waa flowerada dibadda nooga yimaado kale. marka waxaan isku dayahay imanka mar haddii hawsha ay suurto gashay inaan alaabtan oo qalabkan laga sameeyo flowerka oo mara ah aan helo si aan u sameeyo flowerada adduunka oo kale ciidiga caawisay runtii ma jirto dhaqaale ahaan aanunba hawshan ku mashquulsanaa oo qabanayay. waxay ahayd inaan dalkeena wax u qabano xaq baana dalkeena ugu leeyahay inaan wax ku soo kordhino oo aan wax u qabano haddii aan dalkeena aynan hagaajisan cid kale oo hagaajinaysa